asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaad saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kaloo cusub. saaxiibayaal, qisadeena caaw waxay ka dhacday dalka ciraaq, waxayna ku dhacday wiil lagu magacaabo rasuul. Sida loo joogay hal mar ayaa la waayay, adiga muddo isbuuc ah. wiilkan lagu magacaabo rasuul waa la waasnaa, meel walba ayaa laga raadiyey, waa la waayay. waxaa la dhahay cadow miyuu leeyahay? maya. kadib arrintiis waxaa loo gudbiyey booliska. sidoo kale booliska iyo ciidanka kale meel walba ayay ka raadiyeen, laakiin rasuul cid heshay ma lahan. macnaha xitaa booliska way awoodi waayeen in ay helaan rasuul, oo sidaa ayaa waxaa lagu waayay rasuul. kadib booliskii waxay dabagaleen moobeelka rasuul. ugu dambeyn booliskii waxaa u suurta gashay amay ogaadeen meesha uu yaala moobeelka rasuul. macna dabcan waxay ka dabagaleen adiga GPRS-kiis iyo locationkii waxyaabaha. adiga ugu dambeyn booliskan waxay heleen meesha uu yaala moobeelka rasuul. meeshii markay tageen, meesha waxay noqotay oo moobeelka yaalo meel saxara. adiga saxarihii tageen, waxay arkeen in uu moobeelka sidaan u duwan yahay. kadib moobeelkii soo bixiyeen, way fiiriyeen, waxay ogaadeen in uu yahay moobeelka rasuul. kadib waxay baareen lambarada ugu dambeeyey ee rasuul soo waca, isagana uu wacay. marka waxay arkeen hal lambar oo aad u soo wacay maalinta ama xilli ugu dambeeyey soo wacay, muddana ay hadleen. marka lambarkaas wuxuu noqday wiil ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Yuusuf. kadib booliskii lambarka ayay dabagaleen, waxay soo qabteen Yuusuf. kadib Yuusuf waxaa la dhahay aaway rasuul, oo macnaha isaga ayuu noqday qof kugu hore ee la tuhmay. tuhunkaasna waxaa keenay lambarkiisa ayaa waxaa laga arkay moobeelka rasuul. dhowr jeer ayuu soo wacay, intaas saacna way isla hadleen. marka waxaa la dhahay aaway rasuul, oo rasuul meel ku sheeg. kadib wiilkan Yuusuf isla markiiba wuxuu dhahay aniga rasuul ma aqaana, ma arkin ma ahayaa. wuxuu dhahay aniga qof rasuul la dhahay ma aqaano. kadib waxaa dhahay ma aqaana sidee u dhehaysaa, fiiri lambarkaaga ugu dambeeya, intaas saacna waa isla hadasheen, marka sidee u dhehaysaa ma aqaan. kadib wuxuu dhahay aniga qofkan rasuul uma aqaano, oo waxaan u aqaanaa Abu Maxamed. kadib booliskii waxay dhaheen adiga waxaa tahay beenaale, rasuulna waa taqaanaa meeshuu jira ee sheeg. macnaha booliskii waxay dhaheen adiga markii horaaba been noo sheegtaniyow, maku aamineyno. rasuulna adiga og meeshuu jiro, hadduu dhintay hadduu nool yahay, haddii afduwatay, niyow rasuul meeshuu ku maqan yahay sheeg. wiilkan wuxuu taagan yahay aniga rasuul ma aqaananiyo, mana oga meeshuu jiro. adiga sidii laisku haystay oo laisjijiidayay, inta ka bax, waa taqaanaa ma aqaana sheeg. ugu dambeyn wiilkii wuxuu qirtay in uu rasuul yaqaano. kadib wuxuu dhahay ii dhegeysta qisada bilow ilaa dhammaad, aniga ay idinkaga sheekeynayo. kadib wuxuu dhahay aniga rasuul waan aqaanaa, waa saaxiibkeyga, laakiin xilli hore aan saaxiibo ahayn oo xiliyadan dambe sidaa isugu badneen. kadib wuxuu dhahay muddo sanad ah, waa sanadkii sanad waxaa umaleynaya 365 maalin waaye. wuxuu dhahay muddo sanad ah wiilkan lagu magacaabo rasuul uu isoo wacayay, wuuna hanjabayay. kadib wuxuu iga dalbanayay in aan lacag siiyo. wuxuu dhahay muddo sanad ah wiilkan uu isoo wacayay, wuu i hanjabayay, lacag ayaan iga dalbanayay. wuxuu dhahay anigana muddo sanad ah wiilkan maalin walbo lacag ayaan siin jiray. maqlayaa, muddo sanad ah ayuu dhahay wiilkan maalin walba lacag ayaan siin jiray, oo lacag ayuu iga qaadanayay. wiilkan wuxuu dhahay heer waxaan gaaray in aan moobeeladeeda gado, gaarigeyga aan iibiyo, alaabaha qaar ii yaalay guri xitaa aan gado, si aan isaga maalin walba lacag u siiyo. kadib booliskii waxay dhaheen maxay tahay sababta keentay in ninkan maalin walba lacag aad siiso, macnaha hanjabaadan iyo waxaas. waxaa dhahay maxaa keenay. kadib wuxuu dhahay wiilkan la yiraahdo rasuul, ada arrimo hore, sheeko hore iyo waxyaabahaas ayuu iga hayay. wuxuu dhahay barnaamij ayaa naga dhexeeyey, barnaamijka ayaa keenay uu dhahay inuu ii hanjabo maalin walban uu lacag iga qaato. kadib waxaa la dhahniyow arrintaas macquul ma ahan in qofku uu sheeko iyo wax ka hayo maalin walbana lacag uu kaa dalbado. isigoo ku dhan wiil muddo sanad ahaya, maalin 2 maalin ma ahan.
eniyo waxaa la dhahay waxaas macquul ma ahan, wax macquul ah noo sheeg iyo arrin aan ku qanci karno. kadib wiilkii wuxuu dhahay wax kale ma jiro, waa intaa. booliskii waxay dhaheen waayahay, oo hadda rasuul meel noogu sheeg. kadib wuxuu dhahay rasuul meydkiisa anaga ayaa qariyey. waxay dhaheen waa dishay miya? wuxuu dhahay hawaan dilay, meydkiina waxaan ku qariyey meel saxra ka mid ah ayaan ku duugay. kadib booliskii waxay dhaheen meeshiina geey. booliskii ayuu waday, meeshii ayuu geeyey. kadib wuxuu soo faagay meydka rasuul, oo sidaa ay boolis ku heleen meydkii rasuul. kadib rasuul markii la soo bixiyey waxaa la arkay in ay xabado badan ilaa 14 xabad ku taala rasuul, oo feerihiisa, xabadkiisa ilaa madaxa dhaawac wax badan uu soo gaaracday. kadib waxaa la waa u jeednaa meydka rasuul in xabadahan badan ay ku dhicin, u jeednaa. waxaa la dhahay hubka aad ninkan ku dishay aawe. sababtoo ah qofka hadduu kiis geysto ama arrin diladii laga hadlaayo ama maxkamadda isla taga xataa hadhow, waxaa la rabaa wixii wax lagu dilay, ama mindi hadday tahay hubkiyaa la rabaa adi, ama mindi hadday tahay ama bistoolo ama waxaas. waxaa la marka aalada keen, waxaa la ninkan bistooladii aad ku dishay aawe. kadib wuxuu dhahay aniga bistooladii waan tuuray. waxaa la dhahay waxaas macquul ma ahan, ee waxaa loo baahan yahay bistooladii ninkan aad ku dishay waa inaad keentaa. kadib wuxuu dhahay aniga wax hub ma qabo, bistoolana ma haysan. waxaan u tagay oo dhahay mid ka mid saaxiibadeeda, waxaan u dhahay niyo waxaan u baahanahay bistoolo, sababtoo ah wuxuu dhahay waxaan qabnaa aroos. marka wuxuu dhahay arooska ayaan rabaa in aan ku dabaaldegin iyo waxyaabaha. waadna taqaanaa meelaha qaar xabadaha waa laga tuuraa aroosyada iyo waxyaabahaas, xitaa wadankeena Soomaaliya waa taqaanin meelaha qaar markii aroos ka jiraan xabadaha la farjiyaa. marka ninkan noocaas ayuu ugu soo qaatay, oo wuxuu ugu soo qaatay in uu arooska familkooda uu xabada ku gamay si uu u dabaaldego. saaxiibkiisana wuu soo siiyey. kadib wuxuu dhahay markaan bistoolada soo qaatay waxaan wacay rasuul. wuxuu dhahay rasuul wuu iga qabtay. kadib waxaan dhahay rasuul haye adiga lacag ma iga rabin? haa, kaalay lacagtaada ayaan ku siinayaa. kadib wuxuu dhahay rasuul wuu yimaaday. markuu u yimaaday oo dhahay xabadda ayaan ku dhuftay, sidaa ayaan waxaan u dilay rasuul. ninkan markuu sheekada dhameeyey, arrintii uu sheegay in uu rasuul dilay, sababtiinu uga sheekeeyey. marka booliskii waxay arkeen sheekadan in ay qabyo tahay, in waxaan aysan macquul ahayn. macnaa waxay arkeen in ninkan aysan macquul ahaynin in uu dilo. macnaha ninkan arrinuu iga hayay, sanadkan lacagaa siinayay, marka lacagta aan siinayaa dhibsaday, sidaasaan u dilay. marka booliskii waxaas way qaadan waayeen. waxay dhaheen horta booliska waxaa shaka galay sanadka oo dhan ayuu ninkan lacagii qaadanaya, taas way qaadan waayeen. waxayna qaadan waayeen in ninkan arrimo yaryar dartooda maalmoba loo soo lacag loogu qaato. waxaasna waxay dhaheen macquul ma ahan. macnaha arrinkan uu ninkan u sheegay way qaadan waayeen. waxay dhaheen niyow meydkiina waa ka haynaa, bistooladii aad ku dishayna waan haynaa, intaas okay waaye. niyow waxaa lahay noo sheeg sababta saxda ah ee aad ninkan ku dishay, sidaanu u yeelay waxaas ma jirto. waxay dhaheen booliska arrinta saxda sheeg, rasuul maxaa ku dishay? kadib wiilkii haddana wuxuu bilaabay in uu been badan sheego oo uu dhaho maya arrintaasaa jirto. ugu dambeyn booliska markay cadaadiyeen, wiilkan wuxuu arkay markaan in uu fashilmay. wax walba ayuuna sheegay. oo muxuu sheegay waaye, wuxuu sheegay sababtuu u dilay rasuul. wuxuu dhahay maalin aniga iyo rasuul waan isla joognay. marka wuxuu dhahay inagoo baashaalayno oo wax iska cabeeno, wuxuu dhahay biyaha ayaa wuxuu igu daray maado lagu sarqaamo, ama uu qofka ku suuxo, ama uu ku jiifto, ama uu wacyigiisaba ku waayo. kadib wuxuu dhahay markuu maadada igu daray rasuul wuu igu xadgudbay. fahniya rasuul wuu igu xadgudbay uu dhahay. marka anigoo jiif ayuu dhahay ayuu muuqaal iga duubay. markaan soo kacayna muuqaaladii ayuu i tusiyey. kadib wixii maalintaa ka bilaabay ayuu dhahay mar walba wuxuu igu hanjabayay muuqaalada in uu faafinayo, haddii kale aan lacag siiyo. marka wuxuu dhahay yuusuf arrinta ayaa aad ii ciishay, aad ayaan ugu walwalay. xaaladeeda dhan waxay noqotay xaalad si kale ah. sababtoo saaxiibayaal waa dareemi kartaan markii horta arrinta arrin fool xun waay. nin rag oo nin rag kale ku xadgudbaayo,
haddana muuqaal ka duubay, maalin walba uu goondinayay inuu soo bandhigayo muuqaalkan. marka yuusuf intaa ayuu ka raadsaday oo wuxuu raadinayay waddo uu ninkan ugu baxsado. marka yuusuf si uu arrinkan isaga soo afjaro oo goondida mar walba loo goondinayo, lacagtan laga qaadanayo, lacagta xitaa wax ugu daran ii sheeg waxaan arrintan kala foolxun oo siduu waxaanan ugu baxo. wuxuu dhahay marka yuusuf waan belamiyey maalin waana dilay. kadib wuxuu dhahay arrinta ugu weyn aan u dilayn waxay tahay in aan dilo, markaan dilay kadibna moobilkiis aan ka qaado, muuqaaladii aan ka daleedo. dabcan sida ayuu sameeyey. rasuul wuu dilay, moobilka ayuu ka qaaday, muuqaaladii ayuu dileeday. kadib moobilkii wuu jijibiyey oo wuxuu ku soo tuuray saxaraha. marka sababta keentay in uu rasuul dilo waxay tahay rasuul ayaa markii hore wuxuu suubiyey ninkan ayuu ku xadgudbay, muuqaalo ayuu ka duubay, maalin walban muuqaalada ayuu u goondinayay. wiilkan yuusufna intaa ayaa dhibtay oo ugu dambeyn waxaa u soo baxday ninkan inuu ka takhalluso, sidaana uu u noqdo qof caadi ah, ceybtiisa iyo waxaasna sidaa ay u qarsamaan. marka sidaa ayuu u dilay rasuul. marka saaxiibayaal, ugu dambeyn yuusuf wuu sheegay sababta keentay in uu rasuul dilo. arrintaa ayay ahayd, arrintaana arrin fool xun waaye. nin rag in uu nin rag kale ku xadgudbo, weliba saaxiibkiisa ah, kadibna muuqaal uu ka duubo. markuu muuqaal ka duubay oo kadibna uu maalin walba uu u hanjabo sida lacag uu u qaato. marka rasuul isaga wuxuu yahay isagaa bahe, laakiin wax fiican muusan samayn. saaxiibkiisana wuu khiyaanay, arrin fool xun ayuu ku sameeyey. ninkan yuusufna wuu ciishooday. adiga ahaan nin rag hadaa tahay maanta dhegeysanayo, macnaha waxaa umaleynaa waxaas macnaha muddo sanadtaan kuu qaadan lahayn. waxaa umaleynaa ninkan inaa markiiba ka takhallusi lahayd, ma fahanti? marka saaxiibayaal, siday ahaataba sheekadeena caawo intaa ayay ku saabsaneyd. macnaha saaxiibkii khiyaanada badnaa ayaan dhihi karnaa, oo saaxiibkiisa labaashaalay la kaftamay wax islacabayn ayuu biyihii wax ugu daray. ugu dambeynna sida ayuu ku sameeyey, kadibna isaga ayaa sidii ogeedeen loo galay. marka saaxiibayaal, mar walba hala fiiriyo saaxiibtinimada, fiiri bini'aadamnimada, fiiri muslimnimada. waxaan diiniin xataa ma banaano, wax fool xun oo qaldan oo dembi ah waaye. aakhiri adduunya waxaan waa ku seegayn, fahmino wax fiican oo wanaagsan ma ahan. marka saaxiibayaal, allah na soo hanuuniyo. labadaa wiilna allah u dembi dhaafo, sababtoo rasuulna dembi ayuu hore u galay, yuusufna dembi ka weyn ayuu galay oo ninkii dhan ayuu bedelaybo. marka saaxiibayaal, wax waaye allah na asturo, wax shar iyo dhibna allah nama soo aadiyo. saaxiibad xun iyo qof walba xunna allah naga badbaadiyo oo dhinac allah naga marsiiyo. marka saaxiibayaal, sheekadeena ama muuqaalkeena caawa inaga inta aynu muuqaalkay dib u kulmi doono. amaano alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.